بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaan suuqiyay qoladii saxaafadda doonaya maanta halkan xogaa inaan ka iftiimiyo taariikhdii mudaharaadkii dhacay iyo halku maanta marayo. mudaharaadkii dhacay bishii 12keedii bishii 8aad saal la socoteen ee warbaahinta kala socoteen mudaharaadka oo muddo dhowr bilood ay abaabulayeen xisbiyada mucaaradka ah dawladdu muddo dheer bay ay ka hortaagneed oo ka cabanaysay oo lahayd mudaharaadka aan iska dayno sababta mudaharaadada si loo dhiga ma naqaano naf iyo maalba waynu ku burburaynaa nabadgelyadeennana way ku xumaanaysaa. ugu dambeyntii warqaday soo qoreen labada xisbi mucaarid oo labada gudoomiye ku saxnaayeen ayaa wasaaradda dakhliga timi markii ay timi wasaaradda dakhliga warqadaasu madaxweynuhu guddi aan ku jiro ayuu u saaray inaanu xal ka gaadhno mudaharaadka ay ka qabsatay xisbiyada mucaaridka ee muddada dheer doonayeen inay abaabulaan. wasiirka dakhliga ayaa markaa warqad qoray wuxuu yidhi labada guddoomiye ee qoraalka soo qoray waxaan doonaynaa mudaharaadka inaan balqaabkii u doonayaan ka wada hadallo hanoo yimaadeen. xisbiga waddani waa diiday yeeritaanka madaxdiisii sare guddoomiyihiisii guddoomiye ku-xigeenkiisii guddoomiyihii hore xogayihii guud intii fulintahayd way diiday. inamaa ka yimi niman baa ka yimi saddexa maalintii hore waan wada fadhiisanay maalin labaadii oo yidhaahdeen cudurdaar u yeelaan ayaan ku nidhi madaxdiina u yeedha dabeedna qoladaasna way iska tagtay markaan madaxdiina u yeedha waxaana yidhahan waxaa naga wakiila faysalna wuxuu ku adkaystay inuu asigu isbahaysiga wakiil ka yahay madaxna u yahay wadaxaajoodkiisaasaanu ku galnay 2 cashay arrintaas socotay waa war la qabo 2 cashay socotay waxaanu tallaabadii ugu horreysayba xukuumad ahaan guddidii la saaray waxaanu gaadhnay go-aan odhanaya mar haddii ay ku dhegeen bal aanu fasaxno laakiin si sharciga waafaqsan loogu fasaxo si sharciga waafaqsan waxay noqotay oo mudaharaadkii laydin fasaxay si aanu khasaariyo dhib inoogu keenin nabadgelyadeena dhaawac ugu keenin aan ka wada tashano qodobadii la gaadhay waxaa ka mid ahaa in lagu qabto xarumaha 6 gobol waaweyn ee xisbiyada waddani iyo cid markaan soo dhaweeyo waa war la qaba warkaas markuu naga baxay oo qoraal ku baxay oo guddoomiyihii xisbiga ucid ee isbahaysiga asagu yidhi anaa guddoomiye ah qoraalkaa loo dhiibay ee aanu kala tagnay yidhi xagga iyagii baanu ku qabanaynaa annagu wixii war saxaafadeeda waxaa hadlay guddoomiyihii hore xisbiga waddani cabdiraxmaan ciro waxaanu khilaafay goobtii loo xadiday ee hargeysa oo goobo kale oo aan goobi ahayn buu yidhi dadka taga. wasiirka daakhilina uu ka daba hadlo wuxuu yidhi goobtii loo xadiday unbaa hargeysana la tegaya 5 gobolna la tegaya. horta haddaa maqasheen dhaawac iyo dhimashaa dhacday waxa sababay hadalka cabdiraxmaan ciro ku khilaafay go-aankii aan wada hadalladii ku gaadhnay ahaa 6 goobood ee xarumood loo yaqaano xarumaha dhexe ee xisbiyada oo mid walba deegaankeedii halka ku taala la calaamadiyey uu diiday oo itijaah kala siiyey mucaaridkii uu yidhi halkaa iyo halkaa taga khilaafkaa yimi ayaa keenay isku dhaca booliiska iyo dadweynihii
ay soo abaabuleen ee mudaharaadayay waxay kaliftay shanta xaafadood marka laga reebo New Hargeysa in dadkii mudaharaadkii ka fadhiisteen oo ay diideen xaafadda oo aniguna deegaan u ahay aanan deganayna cirana ka soo jeedo ayay ku soo ururtay hodheelka maamuus ilaa kaalinta ilmo shukri oo ay dhex cararayeen asaga iyo xirsi maalintaa wixii la dhigayay asbaabta dadka lagu laayeen ayagu sabab u ahaayeen horkacayeen magaalada inteeda kale ma ogeen shanta gobol ee kale wax dhibi kamay dhicin marka laga reebo buuqii Hargeysa ka jiray markii Ceergaabo laga ogaaday iyagoo mudaharaadkooda silmiya u dhacay ee la yiraahdo Hargeysa waa la isku dilayaa ama mudaharaadadii iyo dawladdu way iska hor yimaadeen in ayaguna dib guriga soo noqdeen oo shiid bilaabeen taana uu ku nafwaayay Ceergaabo nin curyaana oo agu go'aan oo wheelchair ku fadhiya oo aniga wasaaradayda shaqaalaheeda ahaa waxba seeraani ku dhacday magaalada Burcana sidaas la eg ayaa waxa dhacday markii dadku ka soo noqday mudaharaadkii oo si wacan oo subaxnimadii u dhigeen maamulka gobolka ciidamada amniga si wacan loo abaabulay sidii mudaharaad salmi loo abaabulay markii lagu soo noqday magaalada ee ziruga la soo gaadhay ee telefoonadii cirriya uga direen xirsi halkan ay heleen ay yiraahdeen mudaharaad rabshado wada sameeya ayay cawaala suqaariya ilaa ziruga ka bilaabantay intaasuna jifa gaaraba adigta taas halkaa waxa kaaga cad mudaharaad faashila oo qoys qura ama deegaan yar oo qura oo muuqda mitiraysu jira ku soo ururay dadkii u dhashay intaana lagu leynayay ay doonayeen nimanka mudaharaadka soo abaabulay iyo booliisku inay iskaga hor yimaadaan khasaarihii ka dhashay mudaharaadka wuxuu noqday 5 qof 3 Hargeysay ku dhinteen 3 isku caa'ilad bay ahaayeen deegaankan New Hargeysa aanan deganahay bay ay ka dhacday ninna wuxuu ku dhintay booliiskii operation ku jiray 2 gaadho oo iska duqeeyay ayaa asagana ku dhacay oo ninkaasuna mudaharaad kuma jirin ka hore Ceergaabana kuma jirin waxay ku soo ururtay khasaarihii goobtii ay horkacayeen Cirriya xirsi ee Hargeysa oo 3 qof oo isku jifi ku dhinteen saacada markay waxaas u dhaceen dadkii waxa soo abaabulay farxay ka baxeen kuwii dhaawacmay kuwii dhintay midna may ogeyn xaaladooda annagoo mas'uuliyiinta qaranka ah khasab waxaan ugu noqotay intaba inaanu ka war helno xaalkooda ogaano waxaanu dibadda u diro dhaawacooda halis yahay wax gudaha aanu ku ilaalino meydkii oo talaajada geeyno xataa waxa dhacday dadkii ehliyada ahaa ee dadka dhinteen inaan loo tagin inaan la tacsiyadeyn muraad kala lahaa dadkan dad looma arkayne waxa loo arkayay dhiig loogu tala galay markii horeba ahaa ii dhinta iyo ii dhaawacma iyo xabadda laabta u dhiga oo kursi la doonay in lagu gaadho ay ahay dadkana lama qiimeeynin qadarinna ma ilahay annakoo dadka madaxdoodii ah oo mas'uuliyiintii ilaahay baday ah ayaa kaalintoodii galnay waxaanu ku galay reernimo waxaanu ku galay dawladnimo waxaanu ku galay qaraabnimo waxba kale maanu harin waxa noo yimi oo xogaal arrinta waa khaatina nooga ah jifooyinkii dadkaas ka dhasheen gurigayga yimaadeen 3 goor ayaan ku jiray iyagoo badan 50 gaaraya 40 gaaraya oqaashoodii salaadintii wax garadkoodii baa socday khasaari dhac dawladda khasaarina qaata dhaawiciina dhaya maalinkan maanta meydkiina aan aasan ay arrintu ahay arrinta dawladdaanu gudbiyay markii maadaama aan anigu deegaan u ahay meesha aan deganahay leegu yimi ilaa heer madaxweynaha u gudbiyay waxaan ilaahay ku mahadinayaa madaxweynaha iyo wasiiradii arrinta loo xilsaarayba inay hawshaa si wanaagsan igala hawl galeen oo aan ku dadaalay inaan sharci loo eegin sababtoo ah xukuumadda go'aan bay qaadatay go'aankaas wuxuu ahaa
khasaaraha dhacay dhibtaa ciddii keensatay asbaabteeda lahayd in hay-adaha sharciga la horgeeyo meydkuna halkiisa yaallo cid uu ku caddaado waxaan ka codsaday dowladda ilaa heer madaxweyne kiiskuna ha socdo oo asbaabtu iyo kiisku ha socdeen mudday qaadanaysaa dadka dhaawaca iyo dadka dhintayna sidii inakoo dowladdoodii ah aan qaadanno tiyadooda dhaawacooda aan qaadanno aan ku dhayno dadku kamay dhiman mucaaradka ee mucaaradku kursi buu ku fuulayay inaku inaga dhinto shicibkeenni ah madaxweynahana waan uga mahadnaqayaa wasiiradii aan golaha ku wada jiray ee shanta ahaa aan ka mid ahaana waan uga mahadnaqayaa waana wada qaadan waxaa mahadnaqaa nala qaba oo noogu mahadnaqay guddiyadii naloo soo diray salaadiinta lahaa oqaasha lahaa waxgaradka lahaa baamushtariga lahaa waa tahay arrintaas waxay noo soo gabagabowday maalintii shalay mag aan hore dadka looga qaadan ayay dowladdu u baasgaraysay ama ugu ballan qaaday dadkii dhintay aaskii oo wafaysan bay siisay dowladdu waxay kala dardaarantay oo aan mid ka ahaa in aan arrintaa dadkaa dhintay iyo dadkaa dhaawacmay aan la siyaasadayn dowladdu ilaa shirkaas markuu dhacay ilaa maanta aan hadlayo afkeeday ka gaabsatay wixii mucaaradka shubayay oo ogtiinoo xirsi wuxuu shubayay cid ugama jawaabin waxaa nagoo codsaday inaanaanu jawaabin odayaal isxilqaamay oo deegaanka iyo hargeysa ah oo aa arkayseen hawshaa inay dhex galaan ayaa markii xirsi hadlay yidhi ha ka daba hadlin waanu ka aqbalnay intaanu hawshaa wanaag ka geli karaynin ayaanu ka galnay